calanka.com waxa soo baxaysa qoladan qabsatay magaalada oo la yiraahdo jadiid layda koox diini ah iyagu waxa ka go'an sidii itixaadku ahaan jiray sidii shabaabku ahaan jiray inay iska daa Soomaaliya shantii Soomaaliyeed mideeyaan xasan sheekh maxamed ajandii soo waxa weeye inuu shantii sameeyo waxa ka garanaysaa dowlad goboleedyadii marka Soomaaliya loo sameeyay wax ninka Puntland kale ma ogola Jubaland sameeyay ma ogola digriye mifruuxuna sameeyay ma ogola wuxuu doonayaa inuu godkii xamal banaadir oo dadka la galo Soomaaliya la galo kullu Soomaaliya oo goofkii dadka ku laayo doonay marka waxa weeye wada hadaladii Soomaaliya ee haalada inta laba dalo 60kii horteed bishii July horteed sida aan awal hadallo wuxuu ka dhigay hadda isagu dowlad goboleed la hadlaysan dowlad Soomaaliyeed oo ninka aad arkaysid ee dalkiisa ay joogan 20,000 Afrikaanki ee magaaladiisa aan xukumin ayaa intuu soo hor fariiso ee loo doortay ognahay saga doorto ku sheegay baarlamaanka mid kasta si loo doortay lacagtii lagu iibiyay baan ognahay ee wakiilada baarlamaanka oo ognahay xogaan loo ayaa leeyahay waxaan u dhaartay Soomaaliya oo midnimo ka shaqeynaya ana waxaan leenahay warta midnimada ku dambeysay iyo isku darsanay warta gurigaaga hagaajiso oo waxa ku lagu hooyay deegaanka ka soo jeedido gaalkacyo koonfurteeda ilaa ay xamarta aad joogtay warta hagaajiso oo fadlan sistamkii la isku raacay ogolow oo inay dadka juubooyinka waxooda dhistaan ogolow oo inay dig iyo manifli waxooda sameystaan ogolow oo inay dawladan garowe ay doorashada gelaysaa wax dhisatay ee nabadda ku nool jaamacadaha inay waxooda ogolow waa dhulkaaga hagaaji markay Soomaali box building iska noqoto qolka meesha samaysato after 4 years sida isku raacsay taala annaguna waxaanu idinkiiba is ogolaan waayo kala qaatay dowlad goboleed ana waxaan leeyahay bye hadda bye inuu waday weydaan adiga amba soo kaxaysan marka masaaru kaysanaya baa leeyahay ciidamada Soomaaliya iyo hubbu soo samaysanaya iyo cid laga hubataa waxaan imaka oo xasan wadaana waxaan u arkaynaa inay Soomaali dib dagaal hubka imaka la fasaxay waa soo hubaynaya warigi shalayta ka taagnaa aakayga hay taagnaa 600 kulliyood boqol taagay Soomaali way soobaanaysaa waxaana soobaanaysaa aqriga ka soo yeeriya xasan sheekh inaguna waxa weey inta iska dhaafno sheekada iyo Soomaali iyo walaalaha dhaxayo weeyaan inaynu nabadgeliyo iyo walaalnimo iyo inagoo gacan siinay markii xabshudii dadkooda halkan joogaan inagu dayn waayay inaynu dhexdeena hagaajino dawladeena dawlad adag oo wanaagsan ka sameysano cadaalad ku sameysano gudaheena hagaajino shirkan ku hagaag sameeyno ciidamadeena dhisano oo ciidamo aan la inoo soo mari karin aan sameysana oo maanta markay Masar hubka u soo harayso hubka xaga lagu aadiyo kala marka shabaab lagu jiray shabaab xijibinaysa oo la dagaalamay caalamka next step waa inaga marka waxa ka soo yeerina inaka isagoo markii fuulay yiri xoogna ugu tagay meeyno diblomaasiyada ugu tagay meeyno xoog iyo diblomaasiyada ugu tagay bal waa kana xasan xoog leeyahay ugu tagay inuu hajabiyo naga hayo calanka.com